waxaa la doortay inaan ka warramo jiilu saxaaba, facii saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. waa fac runtii culimmadu waxay dhahdeen jiil fariid, waa fax ka gedisan nolosha dadkii soo maroo dhan. walidaalika waa culimmada taariikhda rag ka mida waxay tilmaamaan jiilu saxaaba hortoodna wax la mida lama arag bay idhaahdaan, gadaashoodna wax la mida lama arag. waxaana la tilmaamaya ilaa qiyaamu saacu uu dhacona cid la noocii inaanay soo maraynin. jiilkani muxuu dadka kale kaga gedisan yahay? koo waa jiil intiisa ugu badan tilmaamo ay ka siman yihiin leh. waa bulsho dhan oo tilmaamo ka siman, hadday tahay caqiidadooda saafiya, hadday tahay dhaqankooda iyo akhlaaqdooda oo dhammaystiran, hadday tahay ammaanada diinta iyo siday u xambaareen ay u soo gudbiyeen, hadday tahay qalbigooda iyo saafinimadiisa, hadday tahay go'aan qaadashadooda iyo wanaaggooda, hadday tahay jihaadka islaamka u goleen. waa koox baa la yidhaahdaa halkay ka gaadhay diinta aan cidi ka gaadhin. waxaa la yidhaahdaa kooxdaasi ama ummaddaasi saxaabada ahayd, fardi ka mida hadduu taariikhda kala soo maro, qof ka midi taariikhda wakhtigaa waa la buunbuunin lahaa jiilku qofkaasi la noolaa. maalan cumar bin alkhataab hadduu casri dambe soo bixi lahaa isagoo cumar ah, waxaa la hubaa in taariikhda ay tilmaamaan lahayd wakhtigii uu cumar dunida hogaaminayay isagoo aan saxaabi ahayn. waxaa la mida bay leeyihin maalan dagaalyahanadu haddii khaalid soo bixi lahaa ama qacqaac ibnu camr soo bixi lahaa ama ragga la noocuu soo bixi lahaa. idan waa koox ka gedisan bay leeyihiin dunida kooxaha soo maray oo dhan, marka loo eego ballac ahaan intay tiradoodu leegtay iyo marka kor loo eego qimadooda inta ay gaadhsiisan tahay. jiilu saxaaba muxuu ku mudan yahay markaa? waxay yidhahdaan waa fac taariikhda ku suntan. muxuu ku suntan yahay? kow, cinda almuslimiin qiimayn gaara buu leeyahay, cinda culamaa'i taariikh qiimayn gaara buu leeyahay, bale waxay culammadu leeyihiin cinda allaahi subxaanahu wa tacaala buu qiimayn gaara leeyahay. waa kooxda qura ee la tilmaami karo ilaahay agtiisa waxay ka yihiin. dadka inta soo hadhoo dhan waxaad odhan kartaa axsabuhu walaa uzakiiha cala allaahi axada. hebel waxaan u malaynaya waa nin fiican, dadkaasi waa reer fiican, jiilkaasi waa jiil fiican, ilaahayna cidna u ammaani maynaad odhanaysaa. ama jiilu saxaaba kuwa maaha, iyaga lama yidhaahdo walaa uzakiiha cala allaahi axadan. jiilu saxaaba ilaahay baa taskiyeeyey. waa kooxda qura inay dad fiican ahaayeen rabu samaawaati walardi uu ka markhaati kacay. walidaalik maalan haddaynu tusaalayaal qaadanno, ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay laqad radya allahu can almu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara facalima ma fii quluubihim faanzala sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba. ilaahay wuxuu leeyahy ilaahay baa raalli ka noqday mu'miniintu markay geedka hoostiisa kugula beectamayeen. dadkan laleeyahy raallaa laga noqday ummadad intee le 1400 oo nin bay ahaayeen. 1400 oo saxaabo meel taagan ayaa ilaahay hadlaya subxaana wa tacaala, markaasuu leeyahy kuwaa ilaahay baa raalli ka noqday. waa shahaada min allahi subxaana wa tacaala. innagu dadka markaynu qiimaynayno waxaynu ku qiimaynaa muuqaalkiisa, qofka ama cibaadadaynu ka aragno, deeqda aynu ka aragno, tala fiicnida aynu ka aragno, ama qulubtooda dadka ma ogin iyo waxa u qarsoon. qoladan see ilaahay muxuu leeyahy facalima maa fii quluubihim baa ilaahay leeyahy. iyaga ma aha daahirkoodaba wax la qiimaynaya. ilaahay wuxuu leeyahy waxaan ogahay waxa ku jira qalbiyadooda. sidaa awgeed baa faanzala sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba. waxaa la mida markaynu eegno fii suurati tawba, ilaahay wuxuu leeyahy laqad taaba allahu cala alnabiy waalmuhaajiriina waalansaari aladiina itabacuuhu fii saacati alcusrati min bacdi ma kaada yaziiqu quluubu fariiqin minhum uma taaba calayhim inahu bihim ra'uufu raxiim. ilaahay waa ka toobad aqbalay baa la leeyahy nebiga iyo muhaajiriintii iyo ansaartii raacay nebiga wakhtigii adkaaya cuslaa nebiga raacay
wakhti ay u dhowaatay dadka barhkood quluubtoodu inay weecato oo dabeetana ilaahay sugay. dadka caynkan lagu sifaynaya waa kuwama waa ghaswatu tabuuk raggii galay. tabuuk yaa galay 30,000 maaha qof iyo 2 iyo 3 iyo 4 maaha, waa 30,000. 30,000 ciidanoo meel galay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamaya kuwa ilaahay toobadooda u aqbalay. idan jiilkani ama facakani waxay dad oo dhan kaga gedisan yihiin baynu leenahay oo taariikhda ugu suntan yihiin. waa dad miisaankooday alle ku leeyihiin agtiisaa la garanayaa, maaha cinda albashar, cinda allahi subxaana wa tacaala qiimaynta ay ku leeyihiin iyo waxay ka mudan yihiin baa la garan karaa. ama wixii iyaga ka dambeeyey waynu odhan karnaa dadkaasi dad fiican bay ahaayeen, ilaahay baa si xaqiiqadooda og. adigu waad qiimayn kartaa, qiimayntaada waxaad isku dududo waad tilmaamaysaa, laakiin dee lama mid aha kuwa ilaahay iyo rasuulkiisii qiimeeyeen. cid aad odhan karto jannay gelaysaa ma jirto, dee kuwii ilaahay iyo rasuulkiisu iyagoo dhulka kor socda layidhi jannaa gelaysaan mooyaane. sidaa ogeed ayaa axad culamaa'i taariikh baa wuxuu yidhaahdaa jiilu saxaaba mustawahan sare waxay ku gaadheen baan u malaynayaa buu yidhi 3 sababood. axad alculamaa'i alukhraana isna wuxuu leeyahay anna 3 kaleaan u malaynaya, bal aan wax ka tilmaamno. waxa uu tilmaamayaa qoraaga kani sababta koowaad ee jiilkan ay dadka uga gedisan yihiin war horta dee waa ilaahay baa doortay buu leeyahay, oo u doortay inay nebigiisa calayhi salaatu wasalaam u ahaadaan gargaarayaal. ilaahay baa doortay oo u doortay buu leeyahay bacda rasuulillaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam dadka ummadda diinta gaadhsiinaya inay noqdaan. oo ilaahay wuxuu leeyahy wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula, dadna cadaabi mayno inaanu rasuul u soo dirno mooyaane. nebi maxamedna waxaynu ognahay calayhi salaatu wasalaam 63 jir markuu marayay inuu dhintay. haddaa dadka dambe yaa u rasuul ah, ilaahayna wuxuu leeyahy wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula. ammaanadaasi waxaa qaaday saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam. alasl alculamaa warithatu alambiyaa, laakiin kuwa kani waa kuwii intay nebiga ka soo rareen calayhi salaatu wasalaam bini aadamka soo gaadhsiiyey. waxaad garan kartaa cidda ilaahay ammaanadaa ku aaminay ee ciddii koowaad ee nebi maxamed ka qaaday inaanay dad beenaalayaala iyo dad wax khiyaameeya iyo nooca kan inaanay marnaba noqonaynin. sabab labaad bay tilmaamaan oo jiilkani ama facakani uu dadka kaleo dhan kaga gedisan yihi. waxay yidhahdeen wuxuu kaga gedisan yahay taraakum alkhibraat bay yidhahdaan. waa fac ka khibrad gedisan dunida inteeda kale. maxaynu uga jeednaa khibradda tan? kow waxaynu leenahay waxay arkeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. innagu agteenna waxa ku weyn qofka muslimka intuu seexda yidhaahdaa nebigii baan riyo ku arkay. agteenna wuu ku weyn yahay. nebigaana weyneeyey calayhi salaatu wasalaam oo tilmaamay shaydaanku iskuma kay matalo. qofkii riyo igu arkaa wuxuu la mid yahay inuu i arkoo kale. waman ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii faina ashayطaana laa yatamahalu fi suurati man ra'aanii fi lmanaami fasayaraanii fi lyaqda walaa yatamahalu shayطaanu bi man ra'aanii fi lmanaam fakaannama ra'aanii fi lyaqda. kul hadihi alaxaadiid oo bukhaari warinayo waxa uu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ninka riyada igu arkaa ee ku arka sifadiisii uu lahaa. waa sababta aynu u baranno shamaa'ilu moxamed calayhi salaatu wasalaam. nebiga dherarkiisii iyo midabkiisii iyo ballaciisii iyo timihiisii iyo waxaasaa kutub alxadiid lagu dhigtaa. maxaad u dhiganaysaa si aanu kaa qaldamin hadhow riyada markaad aragto haddaad calaa suuratihi ku aragto fa huwa shaytaanku iskuma tamatulo. ama haddaad dee nin madoowo meel maraya aragto inaan rasuulka waa la garanayaa, ilaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin madow ma ahaynin. idan sifaadkiisii haddaad ku aragtay waxaad la mid tahay inaad aragto. innaga markaa agteenna waxa weyn ninka intuu seexdo ilaahay uu waafajiyo inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam riyo ku arko. ka warranka maalin walba 10 jeer arkaya uu ka soo horbaxayay isagoo rumaysan oo muslima oo ilaahay yaqaana, maalin walba ka soo horbaxaya ee xaqiiqatan u arkayay. markaan leenahay xaqiiqatan u arkaya wax badan baa ku hoos ladhan. mar kale aan wax ka tilmaamay
qodobka labaad waxaynu tilmaamaynaa ay saxaabadu dadka kaga gediseen waxay ahaayeen dad qur-aanka la nool. ereygaa u fiirso. innagu waxaynu maqalnaa asbaabi nusuul. aayadda tani waxaasaa dhaco waxaasay ku soo degtay, waxaasaa dhaco saasay ku soo degtay. laakiin iyagu way la noolaayeen. waxaad sawirataa gabadhii muslimadda ahayd ee odaygeedii muranku dhex maray ee uu dihaaray ee ilaahay u ashtakootay ee ilaahay ashtakadeedii ka soo jawaabay. gabadhaasi qur-aankaa markay akhriyayso siday u akhriyaysa? iyaduu ku soo degay, iyadaa ashtakada samaysay. dabeetana ilaahay iyadu qadiyadeedii ka warramay. qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtaki ila allah wallahu yasmacu taxaawurakuma ina allaha samiicun basiir. gabadhaas maxay dareemaysaa marka qad samic iyadoo akhriyayso ay salaad ku tukanayso? wuu kala gedisay adiga in lagaaga sheekeeyo gabadh bay ninkeedii isqabteen, dabeetana qur-aan baa ku soo degay, iyo inay taagan tahay tii qur-aanku ku soo dego iyadoo akhriyayso oo iyadu ilaahay u ashtakootay oo dabeetana ashtakadeeda ilaahay aqbalay. waxaa la yidhahdaa cumar bin alkhataab oo iyo ciidan soconaya meel soo maray, dabeetana islaam buu ku soo baxay. islaantu wuu isla taagay, markaasay wax u sheegtay, warkiisii buu ayuu dhegaystay warkeedii. markaasay ku yidhaahdeen xabasta amiir ulmu'miniin bay leehay xabasta annaasa calaa hadihi alcajuusa. dadkii ma habartan baad u joojisay? yacni dadkii waxay necbaysteen. dadkii dhammaaya soconaya islaan la hadalkeeda inuu cumar isu taagay. cumar baa wuxuu ku yidhi waylak, maga ogti intani tay tahay? markaasaa la yidhi maya. markaasuu yidhi waa tii ilaahay fowqa sabci samaawaat ashtakadeeda ka aqbalay. waa khawlata bintu thaclab buu leeyahy. waa gabadhay ku soo degtay qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha ay ku soo degtay. ilaahay baan ku dhaartay buu leeyahy hadday ilaa iyo caawa ay tidhaahda taagnow salaad waxaan ahayn ugama dhaqaaqayna waan u taagnaan lahaa buu leeyahy. yacni markaynu qur-aanka mafhuumka markaynu u dhigno qof walba, ilaan qur-aankani meel cidlaa kuma soo degin, raggan iyo dumarkan meesha joogu ku soo degay. iyaga ama lagu saxayay ama lagu tawjiihinayay ama wax loogu tilmaamayay. yasaluunaka can ilanfaali qul ilanfaalu waa kuwan taagan. idan qur-aankaad adigu akhriyayso iyo ragguu ku soo degayee taagnaaye iyaga ilaahay ka warramayay isku dhadhan noqon maysaan, isku sina u dareemi maysaan. arrinka saddexaad ee uu sheekhaasi tilmaamaya waxa weeyaan ee nabigu calayhi salaatu wasalaam hayb badan iyo wax mucjisaada iyo kamuu ka warramay. innaga dee bacda sanad dheer oo culamaa ilxadiid ku soo arooriyeen markuu soo maro kutub soo maro caynkaasi buu ina soo gaadhay. warkaasaynu innagu maqallay, laakiin iyagu way taagnaayeen. waxay culammadu yidhaahdaan ama culammada baan kaa kaxeeyo, nebiyullaahi muusa calayhi salaam oo ilaahay u kacay subxaana wa tacaala oo ilaahay la hadlayo ayaa tolkii waxay caabudeen dibi. dabeetana waxaa la soo siiyey kitaab alwaax ku qoran. waxaa loo sheegoo ilaahay uga warramay nebi muuse dadkii inay caabudeen maxay? dibi inay caabudeen. wuu cadhoodo wuu soo noqday. markuu laakiin arkay waaqicii nimankii muuminiinta uu ka tegay oo dib caabudaya markuu arkay, looxaantii ilaahay wax ugu soo qoray uu situu dhulka ku dhuftay. markaasay kala jabtay. nabiga calayhi salaatu wasalaam tacliiqiye wuxuu yidhi laysa alkhabaru kalmucaayana buu nebigu yidhi. warku aragtida la mid maaha buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. nebi muuse war baa loo sheegay dadkii way caabudeen dibi, looxaantiisa uu iska sitay markaa ma jebinin. laakiin markuu isa soo taagay indhaha saaray iyagoo hortiisa dibi ku caabudaya, cadhad daraaddeed markaasuu looxii ka jabay. markaasuu nebigu leeyahy laysa alkhabaru kalmucaayana. maxaan uga dan leenay markaa? mucjisaadka laynooga warramayo waxu dhan way taagnaayeen. innaga waxaa laynoo sheegay inay quraysha iska hor yimaadeen ibagoo kaasoo dayaxa la kala dilaacay. ka warran dayaxoo laba noqday ninkii taagnaa, dayaxoo laba dhambala isagu labadiisa indhood ku arkayay. ka warran ninkii taagnaa isagoo beershiyo boqorkii joogay uu la hadlay caamilkiisii yeman jooga oo uu ku yidhi nin baa gobolladaada ka soo baxay, aniga waraaqii soo diray, waxaasi ma dhici kartee ii keen. ee labada nin soo diray ee labadii nin nebi maxamed u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam iyagoo raba inay u sheegaan
boqorkii kisra ku doonaya raac dabeetana wuxuu yidhi bal noqdo oo ii kaalaya aroorta way ku soo noqdeen markay subaxu u yimaadeen buu wuxuu ku yidhi kii idin soo diray ku noqda oo waxaa u sheegtaan ina rabbii qad qatala rabbahu leyla rabbigay inuu rabbigiisii xalay dilay kisrahay ku lahaa ka yaman la soo hadlay yidhi waxaad kii yamaneed u sheegtaa xalaydan aan joogno aniga rabbigay inuu isaga rabbigiisii dilay boqorkii kisra nafsi leyla baa la dilay oo kisra dhintay ka warran ninka saxaabigee joogay ama saxaabada arkaysay nebi moxamed oo khudbadaynayo geed dhinaciisa taaganiyo ooyayo geedku ka hor khudbadayn jiray waagii hore intaan loo samaynin mimbarka oo ka dhinac ooyayo ay maqlayaan dadku xaniin iljidic dhammaantood ay maqlayaan ka warran nebiga calayhi salaatu wasalaam ay dhex taagnaayeen oo intay biyo waayaan gacantiisa madibad yar u geliya weel yar biyaa gacanta u geliya oo dabeetana ay arkayaan farihiisoo biyo ka dareerayaan oo ku weysaysanayaan 80 nin baa ka weysaysanaya mararka qaarkood 300 oo nin baa ka cabay ama ka weysays ka warran yani nimanka soo taagna waxaas nimanka soo taagna inay jibriil arkaan intuu nebiga u yimi oo su'aalo weydiiyey oo caynkan oo ay yidhaahdeen nin aanan hore u arki jirin oo caynkaasaan markuu baxay uu nebigu ku yidhi ma garanaysaan kan idinka tegey ay yidhaahdeen maya uu yidhi jibriil oo diinta idin baraya buu ahaa idan saxaabadaas dadka waxay kaga gedisnaayeen iyagu diintan bay la noolaayeen qaarkood iyagoo dhulka kor marayaa la yidhi jannadaad gelaysaa dunidani intay cidhiidhi ku noqonaysaa ninka og inuu janno ku sii socda haddaad hubto caawa marka naftu kaa baxdo cirkan iyo dhulkan meel ka weyn inaad helayso tambariiskeedu mii kuuba dhadhami lahaa ma qiimo kula leeyahy ragga iyagoo halkan taagtaagan la yidhi jannaa leediin jannaa gelaysaan oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la jooga idan ayuha alaxiba wuxuu sheekhaasi tilmaamaya uu leeyahay dadka kani waxay ahayn fac ilaahay doortay waxay ahaayeen fac qur-aanka la noolaaday iyo soo degistiisii waxay ahaayeen buu leeyahay fac dee alliya rasuulkiisu ka warrameen ina khayrakum qarnii buu nebi maxamed leeyahay dadba waxa u khayr badan qarnigayga kan uma aladiina yaluunahum waxau nebigu tilmaamaya laa tasubuu asxaabi war saxaabadayda waxa ka sheegina war saxaabadayda ha maagina ilaahay baan ku dhaartee buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam buurta uxudoo dahaba in leeg haddaad bixisaan mudkood waa 2 sacab mud uu midkood bixiyey ama nisfu mud uu bixiyey gaadhi maysaan waayo nisfu mudkaasi diintan dhan baa ku kacday adigu haddaad maanta buur dahaba bixiso maxaad beddelaysaa diintan dhan ee ilaa qiyaamu saaca taagnaan doontaa mud iyo nusmud ay nimankani bixiyeen bay ku taagantay marka laga yimaado dhiiggoodii iyo naftoodii hantidooday ku taagantay hantidooduna waa maxay waxay ahaayeen mud iyo nusmud hadday qarniga noolaan lahaayeen waxaynu odhan lahayn waa dad caydhoo meel degane waxaa loo ururiya inu inagoo odhan lahayn markaad noloshooda la sifeeyo siday ahayd saa daraaddeed jiilkaasi jiil mudan buu ahaa ilaahayna markuu leeyahy kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas iyagaa marka hore lala hadlaya iyagaa kow ka ah waxaa kuugu filan in ilaahay qur-aanka ku leeyahy والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم كوي صهر مري الرئي مهاجرين يا أنصار هيا وحي الراعي إلهي برا لك النقضي بالليل يقول الله يرى لك يهين جنة لو دياري با إلهي هو مرخاتك عيا أي كواريا كور مركا إلهي القرآن كور ما يقال لي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أيها الأحبة وحلنا جيل كاس وجيل إلهي دورتي ضد كان كم مضن
مدينهان وقولي كجمدين ما التاريخ ده بني آدم كقري سينا يهين دت كجدسن نوعيات كدنيا ده صامرة يوردن وحبان كتلمامي هذا بقى إسلام نمضو ما يقول قولي كحدناي معناه ما هو يعني كان النبي محمد أرجي إسلام متاجي كريه أما الدين تمرق ما يسمى يا هل كي جارين وما لا جاري كرينا لكن ومثل وتلمام لا أديك سنة يوقف وربعين وجاره والله جاي بفردي يلا بيصدح جارين أدركته لكن بلشة دي ترى لك وطيال لك يدو ما تشريس لكن إلهي نعمة دي سقف كيدا دالا وجاري كرا وحيا بغاركم هذا بالدين تتاني لو قمت لك قال إن الله شيء النبي قال قرأ إني شوكته وقرن كرنا إن قفك هذا الشيء خاك وحكور لك كو تبارك تري ونقضى نندقسيه ووحكستكو سيه ونقضى ننجسيه ودبت مركو قبصتك الدفاع أو نقضى نن عقل بدن وهو حد باهتو كالا تلين كرا أو نقضى الدين نكو قدري يعني وح الله باين أدو شعلان يسوسي كما الدنبيسة وحان الله باين كور رادين دونه سي غير عادية هذا ما لين يسنيك النبي محمد شيخ وها مركا عليه الصلاة والسلام صحابته ضد بكيو جيس السنة وداغ بدنا وفعنا وطلرونا وعين كان إلهي بدتك كدح دورتي أيا دي معلن كودية أيا يجا معلن كودية تببره هودية ساسي وجدتك إني كجد السنان دونان ومسألة معقولة إلا الشيخ خلق من اللي هي ما يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام لكن تام معناها يدوم معها